ciidamada ammaanka oo ku guda jira howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda ayaa waxaa xilli dambe oo habeen ah kormeer ugu tagay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre si uu u dhiirigeliyo howlaha wanaagsan ee ummadda Soomaalidu hayaan isla markaana ogaan lahaa qaabka iyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan ciidamada geesiyaasha oo qabowga u taagan ama dhaxanta sidii aan nabad ugu seexan lahayn uguna noolaan lahayn. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxaa kormeerkiisa xilliga dambe ee habeenka ku weeliyay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka iyo siyaasadda gobolka Banaadir, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda, iyagoo ku lugeeyay qaar ka mid ah isgoosyada wadooyinka uu kormeerka ku tagay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si ciidamada ay u dareensiiyaan in madaxda qaranku ay garab taagan yihiin. wadooyinka uu kormeerka shaqo ku tagay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ka socdeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda si kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab aysan ugu dhiiran inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed, maadaama hadafkoodu yahay maleeshiyaadka nabadiidka ee Al-Shabaab in bulshada Soomaaliyeed aysan nabad ku noolaan. waxaana howlgalladaasi iyo xaaladda ammaan ee caasimadda soo dhaweeyay qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo ra-iisul wasaaruhu kula kulmay wadooyinka. ما شاء الله هذا ريح هذا ويلكي جاي هذا ريح توقع اوكي ما تحكي خلاص يمشي هذا اللي انت سي مربط كده لا يدك شويه ما قبل سنه يا ما ان شاء الله ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa degmooyinka uu tagay waxaa ka mid ahayd degmada Cabdicasiis, halkaas oo kula kulmay xildhibaano iyo shacab si caadi ah oo nabad ah xilli dambe oo habeen ah ugu caweynaya xeebta Liido oo ka mid ah goobaha dalxiiska ee magaalada Muqdisho. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha ammaanka ayuu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre kulan kula yeeshay xeebta Liido ka oo looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda, isagoo warbixino kala duwan ka dhageystay hay'adaha ammaanka. sida warbaahinta qaranka u sheegay Maxamed Cabdullaahi Tuulax, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir. caawa waxaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu kormeer ugu kurgalay xaaladda amni iyo nadaafadda iyo bilicda magaalada uu caawa ka bilaabay magaalada Muqdisho, halkaas oo ay joogeen ciidamo ka tirsan hay'adaha amniga gaar ahaan kuwa booliiska. ra-iisul wasaaraha waxa uu u kurgalay sida ay u shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed. sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu caawa kormeer ku tagay xeebta Liido oo uu shacabka meeshaas joogay uu kula caweynayay. waxaa habeenadii la soo dhaafay ka socday degmooyinka magaalada Muqdisho howlgal ay si wadajir ah u sameynayaan hay'adaha amniga, howlgalkaas oo lagu dardargelinayo amniga magaalada. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu xeebta Liido kula shiray hay'adaha amniga taliska booliiska Soomaaliyeed oo uu ka dhageystay sida ay howlgalka iyo howlaha magaalada ka socda ay u wadaan. saacadihii ugu dambeeyay magaalada waxaa howlgallo laga sameeyay dhowr degmo, degmada Xamarweyne, degmada Shibis oo lagu soo qabqabtay dadkii amni darada lagu tuhmaayay. dhowr bambo ka dhacday degmada Shibisna saas oo kaleeto dadkii lagu tuhmaayay lagu soo qabtay. ra-iisul wasaaruhu wuxuu kula dardaarmay dadka shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniguba in shacabka amniga la sugayo loo diirnaxo oo loo dhagan ugu laado shacabka. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.